Khalid Kaamil dhowrkii maalmeed ee lasoo dhaafay waxa uu ku xiran yahay deegaankii uu ku dhashay, halkii uu ku barbaaray, halkii uu wax ku soo bartay, iyo halkii uu deegaan ahaan ka soo jeedayba. Hees uu soo qaaday darteed ayaana loo xiray. Ugu horreyn, haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaal aan leeyahay uu kusoo gaaro, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka ii share garayso, like-na ii saarto, naguna soo biirtid. Mahadsanid. Muuqaalkana maantay waxa uu ku saabsan yahay fanaanka Khalid Kaamil oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay xabsi guri ahaa, kaas oo u xiran muuqaal ama hees uu soo saaray, taas oo ku saabsan ama uu ku taageerayo dadka reer Falastiin. Waxaana filayaa inaad fahantay heestu waxa ay ku saabsan tahay iyo erayada ay ka bilaabatayba. Wuxuuna erayadeedii ugu horreeyay ku bilaabay qasa waa la dumiyey ee ma uga sii daraynaa. Waxaana filayaa inaad fahansan tahay waxa uu kala jeedo oo ah hees ku socota reer Somaliland, taas oo ah qasa waaba la dumiyey, Israa'iil miyaan sii taageeraynaa. Barakaca reer Qasa ama barakaca reer Falastiinna ma u dabaaldegaynaa oo ma ku farxaynaa, oo Israa'iil inay duqeyso ayaan ku farxaynaa. Oo dulmiga iyo dhibaatada ma ku diirsan doontaa, taas oo ah dulmiga iyo dhibaatada ma ku fiicnaan doonaan dadka reer Somaliland, oo dowlad miyay ku noqon doonaan inay fiirsadaan dhibaatada lagu hayo reer Falastiin. Oo go'aankani ma dawbaa, oo safaaraduna ma dawbaa, taas oo ah go'aankani ma mid saxanba, oo safaaraddii in laga furtaahi halkii barakaysnayd iyo Qudus ma saxba oo la yiraahdo Israa'iil ayaa iska leh oo safaarad ayaan ka furanaynaa. Yahuudi Ilaahay nacladay oo rasuulkii Ilaahay lacnaladay in lagu dego halkaas oo la yiraahdo safaarad baan ka furanaynaa, ma saxba. Khalid Kaamilna waxaa lagu haystaa maxaad runta u sheegtay, maxaad dadkan u baraarujinaydaa, maxaad u soo kicinaydaa damiirkan dhintay, maxaad dadka runta ugu sheegaydaa, maxaad codkan aad leedahay oo meel dheer gaaraya u adeegsanaysaa in dadkan lagu baraarujiyo. Muuqaalkani maantana intaas ayuu ku egyahay. Haddii ilaa iyo dhammaadka nala soo gaartay waa mahadsan tahay. Muuqaalka inoo share gare. Mahadsanid.